gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xarunta aqalka dowladda si xamar ku daafuray tababar socon doona muddo 5 cisho ah oo lagu baranayo muhiimadda uu talaalka u leeyahay carruurta. tababarkan ayaa waxaa soo agaasintay waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka ee dowladda si xamar iyadoo ay ka qayb gali doonaan howlwadeen ka socda MCH-yada ka howlgala degmooyin gobolka Banaadir iyo sidoo kale xubno ka socda hay'adaha UN-ka ee UNICEF iyo sidoo kale WHO. agaasimaha waaxda caafimaadka ee dowladda si xamar Maxamed Maxamuud Cadow ayaa ka warbixiyay tababarkani. soo dhawow maanta waxaa meeshaan isugu imaanay tababar ku saabsan talaalka iyo waxyaabaha la xiriiro. tababarkan waxaa loo qabanayaa tababarayaal ka sii shaqeyn doono inay dadka sii gaarsiiyaan tababaro kale oo ilaa iyo degmooyinka sii gaarsiin doona haduu ilaa yiraahdo. wuxuu noo socon doonaa ilaa iyo 5 maalin. maanta waa furitaankiisa ugu horeeyay. waxaa nagala soo qayb galay oo nala joogo WHO iyo UNICEF oo ah labada hay'adood oo aadka ugu lug leh talaalka iyo wacyigelinta iyo waxyaabaha la xiriiro. sida ogtaa mudane gudoomiye maalmahan dambe waxaa wadnay sidii loo hubi lahaa talaalka la siinayo ilmaha ku nool gobolka Banaadir iyo nooc uu yahay iyo tayadiisa iyo quality-giisa iyo in la gaarsiiyo qofkii loogu talagalay in kaleeto. anagoo marka taa ka duulayno ayaa waxaan bilawnay inaan dardar gelino waxyaabihii la xiriiray talaalkaas iyo dadkii ka shaqeyn lahaa iyo meelihii lagu kaydin lahaa iyo standardkii loogu talagalay ma yahay mid sax ah iyo mid kaleeto. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa bogaadiyay dadaalada kala duwan ee kor lagu qaadayo wacyigelinta muhiimadda uu talaalku u leeyahay carruurta Soomaaliyeed. waxaan har iyo habeen iyo maalin waxaanu soo jeednaa abaabinta daryeelka nafaqeynta ubadka ayaan u taaganahay. isla markaas waxaa ku dhaca يعني daryeel xumo caafimaad ayaa ku dhacda. daryeel xumadaas caafimaadka ayaa maamulka gobolka Banaadir wuxuu xoog saaray inay ka baxaan ubadkeenu oo ay helaan يعني daryeel caafimaad oo tayo leh laguna kalsoonaan karo. haddii cunugaaga qof iska socdo aan la garanayn wadankan wada cadaawada noqday oo maalin walba tallaalo adiga kalsooni ma qabtid cunugan si sax ah ma loo tallaalay mase looma tallaalno khalada loo tallaalay. haddii cunugaas yani ay cudur isaga yimaado xataa aan tallaalka shaqo ku lahayn adiga cuqdaad qabtaa. cuqdadaas oo ama misuse lagu sameeyay ama si khaldan loo isticmaalay dawadii cunugan la siiyay. laakiin marka shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir oo shaqaale dawladeed markay hawsha ay u qumaan waxaan anagu ku leenahay accountability toos ku leenahay.